barnaamijkeenan waxaynu ku dahaqaadaynaa beeraha lagu baarimiyo ee lagu tarmiyo cayayaanka baranbarada oo looga ganacsanayo sida xoolaha nool oo kale. xaruntan ku taala dalka Shiinaha ayaa noqotay beerta ugu weyn ee lagu beero ama lagu dhaqo cayayaanka baranbarada, halkaas oo lagu xanaaneeyo in ka badan 1 milyan oo baranbara sida uu xaqiijiyay Mr. Wian oo ah mulkiilaha xaruntaasi. Mr. Wian waxa uu aaminsan yahay in baranbarada urteedu ay udgoon tahay, waxaana uu soo saaraa xaddi badan oo baranbarada ah oo lagu iibiyo suuqyada dalka Shiinaha, taasoo lagu cabeeyo kiisas balastika oo ilaa 450 kilogram gaaraya, iyadoo Shiinuhu dheecaanka baranbarada ka soo saaraan maadooyin dawada ka mid ah, gaar ahaan daawooyinka ay ugu talagaleen beerka, caloosha iyo wadnaha laftiisa. Mr. Wian waxa uu xiisayn jiray dhadhanka baranbarada tan iyo markii uu 7 jirka ahaa, waxaana uu jecel yahay marka uu shillimaadka dhigo. cunitaanka baranbaradu waxa ay Mr. Wian dhankiisa ka tahay cunto fudud oo si degdeg ah loo diyaarin karo, taasoo qani ku ah maadada borotiinka, waxaana uu si wacan ula dhacsan yahay cadaaliskeeda iyo dhadhankeedaba.